daafaca mayalka adag ee kooxda kubadda cagta Liverpool ciyaaryahanka u dhashay wadanka Scotland ee lagu magacaabo Robertson ayaa ka sheekeeyay saameynta ay ku leedahay lambarkiisa 26aad. ciyaaryahan Andre Henry Robertson oo u dhashay wadanka Scotland ayaa sheegay in lambarka 26aad uu yahay saameyn gaar ah, isagoo sheegay in kooxdii uu ka soo bilaabay waayihiisa ciyaareed ee Celtic kadib uu ugu wareegay kooxda Dundee United oo uu saftay 36 kulan inay saameyn ugu yeelatay inuu ka mid noqdo in lambarkaasi gaar ah uu noqdo. Robertson waxa uu sheegay in sidoo kale kooxda Liverpool ay joogaan ciyaaryahano dhowr ah oo ku tilmaamay inay yihiin mid sareysa tayadooda ciyaareed. Roberto Firmino ayuu ku tilmaamay inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee kooxda Liverpool xirfad ahaan. Robertson ayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool kula guuleystay tartanka Champions League iyo sidoo kale Super Cup-ka qaaradda Yurub. Sidoo kale waxa uu ciyaaryahankan ku guuleystay koobka xiisaha badan ee naadiyada adduunka. taariikhdiisa kooban haddaynu eegno, Andre Robertson waxa uu dhashay 11 Maaj 1994, hadda waa 26 jir, wuxuuna wataa lambarka 26aad. Glasgow oo ah caasimadda Scotland ayuu ku dhashtay. 5 feet 10 inji oo u dhigmata 1.78 mitir ayuu dhererkiisu yahay, wuxuuna ka ciyaaraa booska saddexaad. Robertson Celtic ayuu kusoo biiray juniorskeeda sanadii 2009 kadib kooxda KPR waa Queensberg Rangers ayuu u wareegay. naadiga KPR waa Queensberg waxa uu sabsay 34 kulan kooxda kuwaad kadib Dundee United ayuu ku biiray, isagoona ugu wareegay kooxda Hull City oo uu u sabtay 99 kulan. Liverpool ayuu sanadkii 2017 ku biiray, ilaa haddana 86 kulan ayuu u watay, 2 goolna waa uu dhaliyay. waxaana uu sheegay in waayihiisa ciyaareed Liverpool uu kusoo gabagabeyn doono Andy Robertson.